waxaa idinku seexda shacabka Soomaaliya meel uu joogaba waxaa lagu seexdaa gorgor. munaasabadan lagu abaalmarinayay saraakiil xigeen alifley iyo dabley ka tirsan guutada 17aad ee kumaadooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xerada Damaayo ee taliska guutada 17aad. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil kale. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha guutada 17aad ee kumaadooska gorgor Gaashaanle Dayax Cabdi Cabdulle isagoona sheegay askarta maanta la siiyay abaalmarinta ay yihiin askartii kaalimaha hore ka galay tababar kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin hogaaminta ciidanka iyo shahaado sharaf oo ay ku muteesteen howlgalladii ay kula jireen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab. taliyayaal xafladeenna maanta waxay ku saabsan tahay abaalmarin iyo cutub ka tirsan saraakiil xigeenada taliyaasha kooxaha oo tababar meeshaan ugu dhamaaday xagga hogaaminta ah iyo saraakiil xigeen dabley ah howlkarro haliyeeyo gutay waajibaadkii qaranka Soomaaliyeed u igmaday iyo kii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga sugayay kuwaas oo dabcan ka mid ahaa colol kala gedisan oo guutada ka tirsan kala jooga meelo kala gedisan halkaasna waajibaadkooda ka gudanayay in badan oo ayaga la mid ah oo waxaa jira ku shahiiday ama ayagoo gudanaya waajibaadkii qaranka u igmaday oo u dhaarteen. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Tahliil Biixi ayaa ku amaanay guutada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. waxaa tusaale u tiin xoogga dalka Soomaaliyeed meel uu joogaba waxaa idinku seexda shacabka Soomaaliya meel uu joogaba waxaa lagu seexdaa gorgor. meesha aad soo gashaan baa lagu farxaa waxaa idinka naxa cadowga waxaan idinka rajaynayaa inaad dalka ka xoreysaan cadowga saraakiisheenii saraakiil xigeenkii askartii dableydii iyo guud ahaan shacabkii Soomaaliya naafaynaya ee al-shabaab inaad xoreysaan inaad dhiiggiina waddanka u hurtaan waad u tababarateen waad u diyaar garowdeen dhiigga waddankiina u hura wax loo huri lahaa oo ka fiican diinta iyo dalka in dhiigga loo huraa ma jiro. gabagabada munaasabadan ayaa waxaa shahaado howlkarnimaha lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah askarta iyo saraakiisha guutada 17aad.